السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح ونكسر نماتي من بعض عالم كجوتة وحرتشينا إلى العفمان قبسان معلومة يقدم بيسي واحد فيديو أم صور دقيقة أم أسبوع يقدم بواحد فيديو أم صور دقيقة هذا ذكرى اللي كلنا وأي حاجة أسكار مشغولة لكن هذا وانصور نقطي فيديو دي سيدي أيوة صعون دونان markii koobaad intaan video ugu gelin videoga hore waxaan leeyahay videoga ku xiga kan waxaan soo dhigi doonaa ama soo gelin doonaa Q&A hadaba maanta waxaan soo gaarnay waqtigan Q&A gaan ka hadli lahaa su'aalihii jawaabi ay soo diyaari ka bacdina su'aalo waxa ku jira mataqaan idin xiisi gelin doona anigana xiisi gelin inaan ka jawaabo dabcan marka su'aalahaas ka jawaab doona intaan laakiin su'aalaha ugu gelin waxaan idinku bashaareynaa inaad tihiin dadka mutaysta in loo mahad celiyo dadka mutaystay in lagu dhaahdo waad mahadsantiin maadaama waxaad tiin dadka geliyo waqtiga si ay mataqaana u daawadaan videoyadeeda u like gareeyaan ama ay comment uga soo bixiyaan idinkana mutaystayna inaad waad mahadsantiin waayo YouTube channel-kayga wuxuu gaaray kun subscribers waxa laga yaabaa dadka qaar inaad oo ma imku kun subscribers gaaray dabcan ha kun subscribers imkan gaaray aniga waxaan badangeyga ka tahay dabcan iyo qof walba YouTube channel-kayga daawada waxaan biisay laftiisa u tahay inaan anu guul gaaro maadaama idinkuna guul gaadeen aad mahadsantiin mar labaad waqtigiina quruxda badan saad ugu hurtaan YouTube channel-ka noqolaabad daawataan hadaba su'aalaha intaan u guda gelin dabcanna waxaan idin sheegayaa videoga dhamaadkiisa inaan bixin doono hadiyadan idinku mahad celinayo taas ayaan idin lafteedana ama taqaana ugu dambaysta aan soo bandhigi doonaa aan qof walbaaba aan ku oran doonaa hadiyadaasaan idinkana idinku bashaareynaya marka hadiyada intaan u guda gelin laakiin Q&A-ga ayaan u guda gelin doonaa intro-ga ka bacdi hadaba su'aalaha ayaan u guda gali doonaa ay jawaabahoodii hadii aan wax su'aal aan iloobo ama taqaana ama ku sheegi waayay videogan adan idinka raali gelinaya dabcan waxaan soo qaadanaya kaliya su'aali aan sidoo okay way anfacayaan dadka aniga way anfacayaan in dadka kale nama qalan dabcan su'aasha koobaad waxay soo weydiiyay Ali Siyaad wuxuu yiri bro waxa kale oo rabaa inaan ku weydiiyo sidee kubadeeda u soo bandhigi karaa sababtoo ah Soomaaliya kubadeeda lama qiimeeyo waxaan ku sheegayaa Ali mataqaana inaadan hamigaaga iyo riyadaada adan hoosinin waxaan ku sheegay waxa way tahay meel walba kubad laga ciyaaro in fursad taalo in kubad laga qiimeeyo meel walba kubad laga ciyaaro kubad baa laga qiimeeyaa hayso odanin Soomaali kubad laga qiimeeyo kubad way taala African kubad way taala meel walba way taala marka waxaan ku sheegay kaliya adigu meesha aad joogtid qiimeeyo dadka ka horeeya dadka meelaha fiican ka ciyaara dadka lacag ku qaato kubad Soomaaliya ama joog ama kale joog kubad lacag dad ku qaata jira meel fiican maraya jira la qadariyo kubadooda fiican tahay jira waxaad eegaysaa oo qiimeynaysaa ciyaartooyadaas waxaad oranaysaa okay ciyaartooyadani tayadood maxay tahay maxaa iyaga lagu qiimeeyaa sabab maxay iyagu halka u gaadheen hadii aad aragtid dadkaasi dabcan sida ay u fiicno waana lagu qiimeyn doonaa adiga tayada su'aasha labaad baan u guda galiyaa waxay soo weydiiyay su'aashan Cabdirashiid Maxamed wuxuu yiri kulli qoraal baa ka horeeya saaxiibaan ku salaamay marka hore fadlan su'aashan aad aragtid soo joog magacayga Cabdirashiid waxaan ku noolay magaalada Kismaayo waxa igu jira hami ah inaan noqdo wiilka ugu horeeya Soomaaliya ah ee u ciyaara Barcelona iyo Real Madrid haddana waxaan rabaa inaan safar ku tago wadanka Qatar oo koobka adduunka lagu qaban doono marka saaxiib maxaa igula talin lahayd marka wadanka Qatar tago halkee wax ka bilaaba maxay igula talin lahayd kubadda marka Qatar tagtid iyo marka halkee baad ka bilaabi doonto marka Qatar tagtid labada su'aal oo soo weydiiyay dabcan waxaan kugula talin waxay tahay adigu marka Qatar tagtid isku day academy ama meel kubad laga ciyaaro ama meel koox laga ciyaaro inaad tiraadid waxaan doonayaa tijaaban idin maraya tijaaban waxa loo maraa qofka isku day dad waxay sameeyaan macallin arday waxay sameeyaan hadayna helin numberkii iyo meelihii waxay tagaan kooxda meesha ay ka dhisan tahay ka bacdina waxay yiraahdaan inta u tagaan wiji ay iyagu macnaha isa soo bandhigaan waxaan ahay qofka waxaan doonayaa inaan tijaabo idin ku maro sidee baa u aragtaan ama ha un baa lagu oran ama maya lagu oran marka isku day baan ku oran lahaa marka aad tagtid Qatar inaad koox u tagtid oo tiraad adigu aad u tagtid wali wajigaaga aad kula hadashid Ingiriis ama af Carabi ama kolba wax aad garanaysid oo tiraad waxaan doonayaa inaan tijaabo idin ku maro ka bacdina ha ama maya un baa lagu oran su'aasha labaad waxa weyn halkeen wax ka bilaaba waxaad ka bilaabi kartaa marka aad tagtid dadka wareyso waxaad weydiisaa kooxda intee leeg baan ka dhisan kooxeedayba ugu fiican waxyaalaha isku day inaad wareysatid way anu ma garanay Qatar dadka ku nool kubadeedu sida ay tahay laakiin waxaan kugu leeyahay waxay tahay marka aad tagtid halka dadka inaad wareysatid su'aashu labadii jawaabeedba insha Allah wataas ayaan filayaa ama aan kaaga soo jawaabay su'aasha kale waxay leedahay walaalahay waan ku salaamay waxaan jeclaan lahaa inaan ciyaaryahan noqdo gabar baan ahay la socdadeeduna waa 7 jir waqtiga ma iga tagay mise
weli chance baan haystaa walaal markii koobaad aad ayaan kusoo dhaweynaya adigana waxaan ku leeyahay waqti kaama tegin 17 jir baa tahay weli kaada waqti waad haysataa waxaan ku leeyahay hamigaagan ilaa waa ku rumayn karaa kaliya ta dadaal aamini inaad samayn kartid inaad gaari kartid ka bacdina waxaan ku leeyahay dadaal insha Allah waxaan ku rajeynayaa inaad gaari doontid insha Allah su'aasha kale waxay leedahay السلام عليكم صاحب إيد وحن كويدي أنا جو كبد مرة يقول دم بيسي سيدا سفض ولا قبسن كلام وحن كل شيء واحد كبد مرة لقيت تقو متقانا كسر نقطان أما فصحاتك تان أما أنا جو بقى أنا هذا أوكي فصح بالوجه مرة لصون نقطة محن سمين دونا قرشاي كلي حول مرة كوبد أنا كبد توستيك مع مرة كوبد وحن كو قسم على مرة كوبد إنا شركة يجلسوا إنا متقانا عن جيم تتقو إنا متقانا مرقها يجلسوا سأي متقانا ولا قبسة وحول بودنا هاي كان عتكي معناها أرض بنتيجي وأن أردي وحوجا وحن تيجي تقانا أرض سكير دير مالها 40 دقيقة لو أرديو 60 دقيقة لو أرديو سجل كيو ورقب صدو دقائق فرح بدن الأكتيفيتي جن ونها يوصلوا ورقب صدو جل كيو كلا صدو ورقب صدو بعد ما حسكودية معناها دقائق دقيقة كبدو اللي دقيقة إن مركب عير ستيب باي ستيب عنو بلاو كبعدنا وحول بابا يفضلون لكن مركب واحد حسكودية إن ونها يجي جل كيو عنو دياريو إن أردي كرتو كبعدنا حسكودية إن أنا إسهانت معناها وقت جا لحديثة أنا أقول لك تيم جتجي أو منطقة أنا لسه مرقاية أيان لبدا شيء سميني أيان وقدام بيس راح حسكودية أنا سميه دقائق دقيقة لكن عايرة إن منطقة أنا سكودية إن كبد قاطع أو منطقة أنا سميه إن جاوين كسلو بدل وحيالها إن سميه مركب ستيب باي ستيب مركب تصبح كوكو قادم كرتا أسبوع لبا أسبوع بنكور لها صدا سميه كبعدين بوم وحتى ديار سؤال شكل waxa ay leedahay waxaan sameeyaa waxay soo weydiisay su'aashan Imraan Yare waxaan u maleynayaa okay su'aasha waxay soo weydiiyay Imraan Yare wuxuu yiri waxaan sameeyaa 200 squat ayaan sameeyaa 6 maalmood isbuuci macna isbuuca gudaheed waxaan sameeyaa 6 ish oo 200 squats hadda waxaan haystaa lugu qurxoon kuwii hore ka murqo waaweyn marka iga caawinaya shoot-ka xoogan mise alimitooyin kala iga dhiman waxweyn awoodda maxaa la yiraahdaa shoot-ka iyo waxyaalahaasi iyo power-ku wuxuu ka imaadaa squats waxaad sameynaysaa kulli murqo fiican baad aliminteynaysaa oo kugu la talinayo inay aad muhiim tahay squats-ku waa aad buu u fiican yahay aniga lafta squats waan sameeyaa squats aad ayuu u fiican yahay ciyaartoy haddaad tahay squats inaad sameyso way fiican tahay laakiin squats lafteedu waxa u baahan tahay waa murqo gaar ah aliminteynaysaa oo ay u badan tahay squats murqaha hore iyo xoogaa boodiya ayaad sameynaysaa marka waxaan kugu la talinayaa awoodda shoot-ka iyo waxyaalaha niyada lafteedu waxa ka timaadaa murqaha dhexda ku jira waxaan u jeedaa labadaada lagood laba dhexaadooda murqaha ku yaala murqaha laftooda waxay ka caawinayaan shoot-ka marka murqaha laftooda waxaad u baahan tahay inaad dhistid marka kaliya ku meedhadan squat samee waxaan ku leeyahay iyaga laftooda murqahan alamite iyo lunge alamite ayaan ku leeyahay lunge marka sawir ahaan ma soo dhigi doona marka maxaa la isku dhameystirno adigu squats ma xuma laakiin isku dhameystir waxa kaliya kugu la talinayaa inaad alimiteysid maadaama doonaysid shoot-ka ka dhiso isku day inaad qaabka loo shido kubadda iska saxdin kubaddu uma baahna badanka maxaa la awood uma baahna waxa u baahan tahay badanka iyada lafteeduna qaab macnaha inaad baratid qaabkii loo shiday kubadda inaad barataan waa muhiim marka qaabkana alamite iyo awoodda powerki marka labada shay ku dadaal hadii doonaysid shoot-ka ugu fiicnaa su'aashan waxay leedahay waxay soo weydiisay Sam su'aashiisu waxa weyn waa 3 su'aalo dabcan su'aashan waxay leedahay kubadda booska ayaad ka ciyaartaa lambar 2 adi academy miya ciyaarta mise club B way saddex adi guriga kaliya miya mise waa loola nool yahay okay su'aasha koowaad markii koowaad way marnaa adi booska ka ciyaartaan waxaan ka ciyaaraa booska maxaa la dhahdaa duwe ama 2 iyo 3 saa u taqaanaan waxaan ka ciyaaraa dhex iyo cilif saddexda position ma ka ciyaari karaa laakiin badanka waxaan ka ciyaaraa waqtigan la taagan yahay sanadadii ugu dambeeyay 2 iyo 3 ya mar waan ka ciyaaraa cilif laakiin waxaan ka ciyaari karaa san hore idinku sheegay dhex difaac iyo maxaa la dhahdaa gees laakiin badanka waxaan ka ciyaaraa 2 ama 3 su'aasha labaad waxay tahay ada academy aad u ciyaartaa mise club B ana waxaan u ciyaaraa academy koox way kala duwan dabcan ana waxaan u ciyaaraa koox academy ma ciyaaro su'aasha saddexaad waxa weeyaan ada guriga kaliya degan mise waa lagu la degan yahay ana guriga kaliya ayaa degan marka wakaas miyada iyo manadiga ku soo dhaweynaya marka su'aasha kale ayaan u gudagalaynaa su'aasha waxay soo weydiisay Aasiya waxay tiri meeqa jir ayaad kubadda ku bilowday waxaan ku bilaabay anigoo oo 5 jir anigoo aad u yar ayaa kubadda bilaabay
okay su-aashan waxa weeyaan mataqaana waxay soo weydiiyey maxamed amiin wuxuu yidhi walaalon ku salaamay marka hore sida wada ogsoonaa ciyaartooyda kubadda ciyaara lacag ay qaataan adigu lacag miyaad qaadataa anigu dabcan waxa laga yaabaa dad badan baa horta soo weydiiyey su-aashaas adigu lacag mad qaadataa horta dabcan dad lacag qaataa way jiraan laakiin anigu kooxdan u ciyaaro ama anigu heerkan taaganahay qof lacag ka qaataa ma jiro qof lacag ka qaataa ama heerkan ka ciyaaro ma jiro sababtu waxa weeyaan wadanada ayaa kala duwan waxa laga yaabaa Jarmalka macnaa wadanka Jarmalka la yiraahdo anagu jaarka aan nahay waxa laga yaabaa da'deedu inay lacag qaataan laakiin anagu Switzerland hadaan joogno lacag ma qaadano da'dan markaan taagnahay ama kooxahan oo kale liigan ka ciyaarna anaga waxa lacag ka qaata ma jiro liiga ka fiican baa jira isla laakiin liigigaasi lacag laga qaato da'deeda ya marka wiilka hadda wax lacag maanu gaarin lacag ma qaadan anaga ayaa lacag dib u bixina ya sanadkii lacag laga qaado marka waxa laga yaabaa inaad u haysatiin in lacag qaadan wax lacag aan qaadana ma jiro anaga ayaa lacag bixina maadaama ay tahay waxaan jecelahay sida darteed anaga kharash gareysana si ay hadhow lacag noo siiso ama si ay hadhow waxaan rabno aan u helno su'aalihii jawaabihii inta ay eegihiin haddii aan wax su'aalo iloobay oo mataqaana su'aashaad waliba iloobay aadadin kaaga raali gelinaya fadlan isku day haddii aan su'aashaad iloobay inaad commentiga videogana daawanaysaan ama videogana hadda socda inaad kusoo qortaan si aan maalmaha dambe ama videoyada dambe aan idinka soo jawaabo insha Allah hadda waxaan soo gaarnay hadiyadii aan bixinay hadiyadii waxaan bixinay wax kale ma aha waxa weyn kaba buuma weyn kabahan weeyaan kabahani waxaan ku ciyaaray caadiin oo cusub yihiin ilaa hadda waxaan ku ciyaaray waqti yar ayaan ku ciyaaray maadaama ani kabahani kaba kale oo buuma aan kula soo iibsaday waxoogaa way geer waa weynaadeen saa darteed ayaan doonayaa imika inaan hadiyad ahaan aan u bixiyo kabahan buumada marka kabahan buumada sidii lagu helayay iyo mataqaana hadiyada qofka ku guuleysan sida ugu guuleysan karay ayaan hadda idin sheegaya u diyaar garow haddii aadan subscribe gareyn markii koobaad YouTube kayga aadan subscribe gareyn talabaad waxa weyn waxaad sameynaysaa videogana daawanaysid commentiga waxaad ku soo qoraysaa salaan iyo noqon laacib tasaddexaad sameynaysid waxa weeyaan si aad adigu extra macnaha si aad adigu uga fiicnaatid dadka kale u tartamaya ama fursad chance ka sii fiican si ay adiga ku siiso inaad ku guuleysan kartid kaba waxaad sameynaysaa oo saddexaad waxaad tigaysaa Instagram-kayga oo soo dhigay shaashadayda halkan Instagram-kayga tigaysaa wada soo follow gareynaysaa ka bacdina videogii ugu dambeeyay baad like gareynaysaa commentiga ayaad wax ku soo qoraysaa waxay doontaa haato waxaad ku soo qoraysaa waliba haddii aad doonaysid inaad ku sii guuleysatid saddex qof aad ku taageeraysaa marka saddex qof ku taageeray screenshot ka soo qaad iigu soo dir macaalada iigu soo qor wax ii soo qor Instagram-kayga wax ii soo qor ka bacdina waxaan ogahay inaad sameysay wixii oo dhan ka bacdina waxaad noqon doontaa qof u tartami kara si fiican qof ay inuu ku guuleysto ay aad u badan tahay fursad uu heli karo marka sidaas samee insha Allah waxaan macnaha videoga ku xiga ayaan sheegi doonaa qofka ku guuleystay marka ayaan ku dhaafin una diyaar garow sidaan samee insha Allah waxaan qof walba hadaba inta ay videoga yahay qof walba waxaan idin rajeynayaa inuu ku heli doono hamigiisa riidiisa wuxuu qalbiga ku hayo waxaan leeyahay inoo videoga dambeeya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh